عليكم. وعليكم السلام. ورميها يوسف. والله وانكي جمال هاي صاحبك هاي يوروب على سو هليا. ورما جمال فارح عالمنا. ورها صاحب وهرا سوق الدبيس انا دور توسن dalka waa ka maqnaa ma garatay. هذه ادوانو قايلات قربان كشي هذا قربان joogtay waa ka warhayay. ها wali sidii baan qurbaa u joogaa warniyo bal dalkii iga waran magaalada gaalkacyo ahayd ka waran see amaankii ba xaaladda iga waran. war magaaladii gaalkacyo ahayd amaankeedu waxa weeye waa iska bariga dhexe weeye ma garatay. bariga dhexe maxaa ula jeedaa. way fiican tahay hadda sidii hore way dhaantaa. ما شاء الله ورينا waxay iga warantaa ragga asxaabtayda oo ninkii Saciid Cali Yuusuf gaadayra oo magaranaysa in wasaaradda maaliyadda ka shaqeyn jiray war ka warrada ma jooga wasaaradda maaliyadda xukumaa war miyaad waalan tahay adiga hee war ninka waa hore la dilay ma gaadayra la dilay war yaa hee war ninka waa hore la dilay ninka miyaad maqal war annaga yaa weliga ma maqal oo waxa iga warantaa ninkii la oran jiray nabadoonka Cabdirasaaq Maxamuud Guhaad ma taqaan isaga aan isku meesh faris haye isaga ka waraha war ninkaasna waa war yaa adiga aad ku maqlaan jiray ma xasba ku xirnaa jiray adiga war ma yaanu de Yurub de khad intaas ay iska mashquulsanayo de dad ay ka shaqeynayo iska xamaala taabaan nahaye war rag waa hore la yaa ka hadlaysaa war annaga yaab aragnay yaasiin ma taqaan nabadoonkii la oran jiray isaga yaasiin cali barre fitrig baa lagu ninka saaxiibkay waa oreer buurtila ahaan jiray isaga ka waran maalintii waagii ugu horeysay raggii ugu horeeyay bay ahayd saabta qabatay baad maanta iga wareysanaysaa asagana ma la dilay war waa la dilay asagana inaad mar hore la dilay warniyo adaan war hayba war ya Allah gabadhi dhudu Yuusuf ahay oo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug haydiyada taxagee ku nooshaa hadda xagee ku dambeysay wareer qolyahan Yurub jooga sidaas aan iska naayo mar baan umada soo xasuusanaay nabadoonkii ma taqaan Cabdikacaan ma taqaan asaga Cabdikacaan waa kii shaah ila kala cabi jiray maqaayadii higlada weyneyd maalintii saaxiibkii ahaa baad ka hadlaysaa xagee ku dambeeyay asagu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war dadka aad ka hadlaysay waa hore lillahi war jamaal oo dadka aad ka hadlaysay waa hore lillahi war annaga oo dadka yaa laayeenayo al-shayaadiin waa aqaana waa kuwii najaasada al-shabaabka dadka u yaqaana fulida soo maaha wadaadkii sakhiga ahaayo shaqayn jiray oo shiikha ahaayo injineer Cumar Dheere oo isagoo samteer soo shaqeeyay isagoo shaqeeyay ugu dambeysay barka hor isaga inna lillahi wa inna ilayhi war dadka waa hore lillahi wa dadka aad ka hadlaysid dad baanta nool baahan waa dadka haweenka hoosiisa ku jira oo qofkan soo qaado ma la dil war anaga yaa wareysanaa marka war waxa xasuusto nabadoonkii la oran jiray nabadoon Nuur Xirsi Cismaan Nuur waal ma taqaanay كل ولا لا ها ورا nin waxa jira qaali ugu ahay cali jaan bixi loo jiray ma taqaan isaga ganacsadaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wariyaha dadka aad iga wareysanaysid warkaale maxaa dadka maanta soo xasuusiyay waa hore la laayay al-shayaadiin baa dadkii laysay war dadka aniga waa hore ugu dambeysay dalka ganacsadii Maxamuud Sheekh Cusmaan ah ma taqaan isaga oo sakhiga ah isaga oo masjidka u dayay oo mid kama noolaa oo asxaabtaydii wada dhimatay gudoomiyii la sheekh la oran jiray gudoomiyaha maxkamadda ahaa la oran jiray ma taqaanay Xuseen Maxamed Khaliif ma taqaanay isagoo xagee ku dambeeyay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wareeda maanta dadkii ummadii aan saaxiibada ahayn oo aan isku ragga ahayn oo aan aysho bixi ahayn oo la laayay baad soo xasuusatay warra adeero inta argay war inta maxaa noo wareysan weyday dalkii uga warreyn weyday wareed war anagu saan ku sheegay saaxiib waska
waska mashquulsanaydeen ninkii la oran jiray cabdiqaadir jaamac nugaal caata la oran jiro saldhigga booliiska mar joog jira waxaa laga sheegay inuu hadda xeer ilaaliye yahay isagoo ka waran laa ilaaha ila allah warninka waryahe hee warniyow dadka aad ka sheekeynaysid dad aaqiro u hoyday weye dad aaqiro u hoyday weeye niman bala ah oo ilaahayna aanan aqoon iyo rasuul midna aanan aqoon baa dadka laynaya al-shayaadiin niman la dhahad weye ma garanaysaa al-shayaadiin war waa gartay kuwaas balaayaha ku dhacday waryaa horta nin la oran jiray tima jilicsanaayo mataqaanay xeeraalyaha la oran jiray maxamuud aw muuse geelle mataqaana isaga maxaa u aqoon waayo isagu hadda ninkaas waa dallacay baa lagu yidhi laa ilaaha ila allah dallacu muxuu yahay ma dallac hoos aaqiro u hoyday aaqiro mi hoos buu u dallacay hoos miyaa la dilay isagana maxaa loo laa ilaaha ila allah muxamad rasuul war maxaad ka war annaga ayaab aragnay ilaahu jannada ka waraabe war waxaan waa adduunyo rogmatee war ka warran taliyihii gaashaanla sare yaasiin axmed saweyne magarasa talwaaye mataqaanay hee hee war ma xabsi baad ku jiri jirtay war miyaadan dadka soo wici jirin war miyaadan dadka aadan xiriir loo lahayn war dadka laayay baad iga waraysanaysaa maanta wareedha kuwan marmar la soo hadli jiray whatsappka iyo mansajarkay kala soo hadli jirayo waxaasba igama sheekayn jiray wuxuu maaqan meelay laayeen annaga waxaas laa dadkii barwaaqo nabad bay iska haystaane sarkaalkii waryaa mataqaana sarkaal la oran jiray mukhtaar sheekh cali jifi jabsan war waa taqaana waa tanu kafee ka wada cabi jirnay dahsoon laa ilaaha ila allah dadkaan ugu badaya ma ninka saaxiibka yaabaad iga sheekayn allaha u naxariistee isagana ma la dilay war waa hore laa ilaaha oo culimmadu maxay dadka wacdin waayeen agaasimihii sheekh ismaaciil xaashi xuseen iyo may dadka wacdiyaan oo la hadlaan oo dadka yidhahdaan dilkaa laga daayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wareedha dad waxaa soo baxay aanan dadkana waxa weeye qofkii ka hadla wanaagaba waxa weeye waaba la dilayaa shiiqa aad ka hadlaysa allaha u naxariista asna waa dhintay miyaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi war in adeero bacdi ummad ahayd oo waxa weeye waxaan u malaynayaa ilaa iyo 50 qof oo reer gaalkacay oo waxa weeye dadkii wax garanayay dadkii nabadoonnada ahaa dadkii waxa weeye haldoorka ahaa dadkii waxa weeye labeenta ahaa baad iga waraysanaysaa iyo maanta laayay baad iga waraysan war maanta maxaa ku soo xasuusiya dadka wareedha gobolkii gobol anigii baad iga qiiraysay war gobolkaan usoo socdo inaan soo tagaan rabeeye xuseen cali duuda mataqaana nabadoonkii weynaayo ammaanka iyo nabadda ka shaqayn jira isaga war allaha u naxariistan iyo waryaahe hee war in adeer dadka maxaa ku soo xasuusiyey maanta war dadkan mootada ayuu dhintay oo waxa weeye maanta naga hooseeya hee maxaa ku soo xasuusiyey dad kale maad iga waraysan hadda in adeer marka magaalada maxaa kasoo doonaa waayahay odayga mataqaana isaga faarax nuur cabdiraxmaan oo culimmada waaweyn ka mid ahaa xerta mudug joogtay war innaa lilaahi war niyow dadkaa dad la laayay wey qof kaleba i weydiin maysid qof la dilay unbaad i weydiin hadda kaanku weydiiyey waa dhintay baa loo dadki meesha magaalada maxaa ku haray waaye cismaan mataqana ninka sarkaalka cismaan cabdullaahi maxamuud oo loo yaqaanay goorgoor buu ahaa goorgoor mataqaane war aad maxaan u aqoon wareedha qof aniga tee baan jiraa aniga haye 70 jir baan ahay waxa weeye qof maanta gobolka mudug jooga oo aanan aqoon ma jirin allaha u naxariista ninkaad sheegaysidna yaan hadda marka gobolka usoo aadnaa gobol lagu dhintayba weye aan wax noolba joogine war nin waxaa jira isaguna saaxiibkaya oo la dhihi jiray maxaan ku idhahdaa ma aqaniyo ninkaas inuu dhimashadiisto aniga ima soo gaarin waxaa la odhan jiray oday bu ahaayo waxaa la warsamo yuusuf islaan cirfaa loo yaqaana warsamo yuusuf cirfaa loo war yaa ilaahay ummadda yaqaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta cidkii matay un ma ahane cid kaleba iga waraysan sama haye wareedha ragga waa raggii maxaan ku rahdaa aanu saaxiibada ahayno waa u xiisay wallahi inaan warkooda helaan rabay ma garatay nin waxaa jira la ohan jiray jeex muuse nuur oo aanu ka wada shaqayn jirnay riig waa jalam ku yaalla ee laga qoday aan ka wada shaqayn jirnay isagoo horta kaalay hee arbuu dhintaasna haa axmed muuse nuur iyo maxamed yare muuse nuur iyo walaalkoodu weeye sow raggaasoo dhan ma wada fiicnaa ma kulligood axmed muuse gudoomiyihii gobolka walaalkii baa ka horeeyey asagii walaalkii kalena way isla dhinteen waxa
warar ninkii sarkaalka ahaayoo ornimayo annaga yaa aragna warniyo meesha saraakiil fiican oo rag kartile baan ku ogaaye maxaa nimanka al-shaydaan laysaga dhicin waayo yarkii cabdirashiid xasan xaashi gebigebi ciidanka miyaa laga saaray taliyihii iyo watuu ahaan jir ma laga saaray meeshii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maalinka la dilay hee waxa weeye warar gebigebi allah ha u naxariisto inaadeen allah ha u naxariisto inna lillahi warar meesha war meelhu ka dhacay cabdiqani cali baa lama taqaan nabadoonkiisa uu ka waran hadda suldaan baa laga dhigay war suldaan waa maxay aaquru suldaan ka yahay baan u malaynaya ninka allah ha u naxariisto isagana war annaga ayaa war nin waxaa jira sodogoy oo xildhibaan loola jeed xildhibaan buu noqdaa luwi Saciid Xuseen Nuur Dirir isagana baa jiray oo saaxiibka ahaa war ina adeero dadka dhinta war kaalay war ma dad kale na weydiis qof dhintay un baad weydiin war dadkaan oo dhan ma wada dhiman baan u malaynayaa niyow ma adigaan waxba ka warqabin war dadkaa i weydiisay oo dhan way wada dhinteen dadkaan isay oo dhan way wada dhinteen kulli waad waa dhinteen way wada dhinteen cid ma loo qabtay marka cid ma loo qabtay dadkii laayay yaa loo hayaa haddi annagu garan mayna cid loo hayo laakiin dadkaan waxaa waaye bala diraysa iyo bala bahakeynaysa ma lahan laakiin dadkaan dad al-shayaadiin la dhahaa dadka taa u laayay warniga horta murugaad igu beertay wallaahi wax aanan ka warhayn baad ii sheegtay aad war anaada murugay ku beertayo waa dadaan saaxiib ahayn oo waa horo dhintay baad hadda isoo xasuusay wallaahi aad baan u naxay saaxiib waxa weeye mar hadday halkaas tahay waxa weeye maanta meel qurba joog dambe aniga waa iga dhammaatay waana soo tegayaa magaaladii gaalkacyaan imanayaa raggii waa inaad abaabushaa oo la sii hadashaa aniguna waa imanayaa wixii dhaqaalo aanu heli karnana waa soo qaadaynaa magaaladaan imanaynaa kooxdaasna waa la dagaalamaynaa al-shaydaan dhallinyaro abaabulan iyo dad abaabulan waa inaan ku imaadaa insha allah waan abaabulayaa dhalinyarada waan abaabulayaa waxaan doonayaa inaad ii timaadid aad soo gaadid gobolka hadda horumar baa ka socda maasha allah horumarka waa sheegaysaa muxuu yahay haddii nabadiiba ay saas tahay dadka saa loo laayay horumarku muxuu yahay hadda gobolka horumar baa ka socda sidii hore xaaladdu way dhaantaa waxa weeye taadana waan kaashanaynaa hadduu alla idmo nin oday oo sargaara baa tahay waa lagu baahan yahay dadka iyo dalkaa kuu baahan waxa weeye experience aad leedahay maaha inaad la joogtid waa inaad dalkaaga aad ugu kaalmaysaa iyo dadkaagaba oo nido habeen gabar gaalka iga soo wacday magaalada waa ii ammaanayso inkastoo dadka ay tiri dad badan baa la laayay waxba ii sheegeen saa ugu faahfaahin waxay tiri nin sarkaala oo la yiraahdo gaashaanla sare muumin la yiraahdo magaaladii hadda qabsaday waxa la nimankii hadda baaba laga dhigay baa la yiri arrinta maxaa ka jirta muumin muxuu ahaa war ninka muumin madaxweynaha la dhahaayo waxa weeye wuxuu ahaa taliyihii qaybta gobolka nugaal waxaa lagu soo bedelay taliyaha qaybta gobolka mudug ninka iyo saraakiil kale oo hadda lasoo magacaabay taliyaha birmadka iyo taliya ku-xigeenka qaybta waxa weeye rag dhalinyaro ah weeye oo aad u shaqaynaya oo u baahan in la garab taago weeye ma garatay waayahay saaxiib aad baad u mahadsan tahay waa ku imanaya deg deg baan u imanaya qurba joog oo dhan waa wacaya wixii dhaqaalaha haddii alla idmo insha allah hadduu alla aad baad u mahadsan tahay saaxiib war annagaa tan oo kale aragnay war waxaan oo kale yaa maqlay oo yaa ka sheekeeyey waa sheeko dhanka faarigu riday kaan soo qaadaba waa la dilay way leeyihiin ma arig weergalay baa oo reer gaalkacyoodku waa til dhijay waa dad dhiig leh ma saasay dad dhiig ku lahaayeen allaya waa inaa u tagaa dadkan abaabula sidaas si kale maahane waa u tegayaa kuwaan haye wax dambe qurba joogi aniga waa noo kala dhammaatay qurba dambe joogi may bele baa joogta qurba joog intaan maqnaaba raggii laga adeegtay waa inaan tagaa